Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Ka hor hadlidda dadka waxay saameyn aad u ballaaran ku yeelan kartaa mustaqbalka qofka iyo mansabka uu ku dhex yeelan karo bulshada dhexdeeda. Noqoshada hadlaa wanaagsan waxay ka dhigi kartaa dadka inay kuu arkaan hogaamiye iyo inaad yeelato dad badan oo ku taageera misna hadalkaaga madaxa u ruxa. Si kastaba ha ahaatee, noqoshada hadlaa aad u wanaagsan ma ahan mid ku timaada hal habeen. Waxay u baahan tahay shaqo adag iyo sabar badan. Halkan waxaan kugula wadaagayaa waxyaabaha kugu saacidi kara in aad noqoto hadlaa aad u wanaagsan. 1. Waxbar nafsadaada. Si aad u noqoto hadlaa wanaagsan, marka hore waa inaad ahaataa qof wax yaqaana. Haddaadan waxba ka aqoon mowduuca aad ka hadli rabto, sidee bay macquul u tahay inaad wax u jeediso? Si aad u hesho macluumaad aad dadka la wadaagto, waa in uu bataa wax akhriskaagu. Waa inaad fikrad guud ka haysataa dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha. Kadibna aad hal qayb diiradda saarataa misna aad wax badan ka ogaataa. 2. Samee tababar. Tababarku ayaa kaa dhigi kara mid kaamil ah. Kaliya ma noqon kartid qof isku kalsoon oo ka hor hadli kara bulsho aad u tiro badan tababar la'aan. Waa inaad samaysaa tababaro si aad u hesho kalsooni. Tusaale ahaan, si aad u hesho tababar waxaad isugu yeeri kartaa asxaabtaada ama qoyskaaga, misna aad ka horjeedin kartaa mowduuc gaar ah. Dhab ahaantii waa mid aad u wanaagsan, sababtoo ah ayaga kuguma qaban doonaan qaladaadkaaga. Waxaan xasuustaa macallin ka mid ah macallimiintaydu hadalkiisa oo ahaa, haddii aad rabto inaad noqoto hadlaa wanaagsan, samee tababaro. Xitaa muraayadda guriga kuu taala hor istaag, misna kor u aqri mowduuca aad jeedin rabto. Waana run dabcan oo waxay kordhinaysaa kalsoonidaada. Guud ahaan, tababarku waa muhiim si aad uga hortagto cabsida iyo walwalka marka aad hor istaagto bulshada. 3. Habayso mowduucaaga. Tallaabadani aad bay muhiim u tahay. Hadlaaga wanaagsan waxaa had iyo goor u cad mowduuca uu rabo inuu ka hadlo, meesha ay tahay inuu ka bilaabo iyo meesha uu ku dhammaynayo. Sidaa daraaddeed, isku habayso mowduucaaga ka hor inta aadan dadka hor istaagin. Kuna dadaal in mowduuca aad ka hadlayso uu munaasab ku yahay dadka aad la hadlayso. Tusaale ahaan, adigoo la hadlaya ganacsato, ha ka hadlin cunno karis iyo wax la mid ah. Sidoo kale ka dhig hadalkaaga mid waadix ah, ha u hadlin si degdeg uu ku jiro. Kana fogow inaad erey uga akhriso warqad. Taa beddelkeeda kaar yar ku qoro qodobada muhiimka ah, iskuna day inaad xasuusan karto macluumaadka kale. 4. Ka warqab luqadda jirkaaga. Haddaadan ka warqabin luqadda jirkaaga, waxay siin doontaa dhagaystayaashaada tilmaamooyin joogto ah oo la xiriira xaaladda aad ku sugan tahay. Tusaale, haddii aad walwalsan tahay ama cabsi kugu jirto, dhagaystayaashaada ayaa durbadiiba ogaan kara. Ka warqab luqadda jirkaaga. Toos u istaag, neef qaado, indhahaaga dadka ku hay oo dhoola caddee. Ha u tiirsan hal dhinac ama ha isticmaalin tilmaamooyin kale oo dabiici aan ahayn. Tusaale ahaan, inaad gacmahaaga isku xoqdo oo ku tusinaya inaad tahay qof cabsi ay ku jirto. Sidoo kale, dad badani waxay doorbidaan inay ka hadlaan miiska yar ee khudbadaha gadaashiisa. Inkastoo uu yahay mid wanaagsan marka aad haysato qoraallo aad akhrinayso, kadibna meeshaasi aad saaran karto, laakiin miiskani wuxuu caqabad ku yahay adiga iyo dhagaystayaashaada. Wuxuuna sidoo kale noqon karaa dabool ku siinaya meel aad kaga dhuumato tobaneeyo ama boqolaalo indho oo ku eegaya. Halka aad isku xanibi lahayd hal meel, soco oo dhaqdhaqaaq si aad ula falgasho dhagaystayaashaada misna aad u joogtayso dareenkooda. 5. La falgal dhagaystayaashaada. Marka aad hadlayso, isku day inaad la falgasho dhagaystayaashaada misna ay kaagala qayb qaataan fariintaada. Hadday habboon tahay, u weydii su'aalo koox ama shaqsi gaar ah. Kuna dhiirigeli dadka inay kaala qayb galaan oo ay ku weydiiyaan haddii ay jirto arrin ay u baahan yihiin inay wax ka ogaadaan. Kuna hay maskaxda marka aad u jawaabayso qof in erayo qaar hoos u dhigi karaan awooddaada ka hadla ahaan. Tusaale ahaan, isla barbar dhig labadan jumlad. Inaad dhahdo, kaliya waxaan u maleynayaa inay tahay inaad sidaa iyo sidaa samayso. Iyo inaad dhahdo, xaqiiqatan waxaan kugu biirin lahaa inaad sidaa iyo sidaa samayso. Sidoo kale, fiiro gaar ah u yeelo sida aad u hadlayso. Haddaad walwalsan tahay, waxaa dhici karta inaad si dhaqso ah u hadasho. Tani waxay kordhinaysaa fursadaha aad isugu qaldi karto ereyadaada ama aad ku dhihi karto wax aadan ula jeedin. Ku qasab nafsadaada inaad si tartiib ah u hadasho. Hana ka cabsan inaad xoogaa yar aamusto misna fikirto. Nasashadu waxay muhiim u tahay wadahadalka, waxayna sababaysaa inaad kalsooni hesho
una hadasho si dabiici ah. 6. Si wanaagsan u fikir. Fikirka wanaagsan wuxuu wax weyn ka bedeli karaa habka hadalkaaga, maxaa yeelay waxay kaa caawinaysaa inaad dareento kalsooni badan. Aad bay u fududahay inaad ku dhacdo dabinka cabsida haddii aad iskula hadasho erayo xun oo dilaya dhiirigelintaada. Tusaale, inaad dhahdo waxaan weligay kuma fiicnaan dooni, ama inaad dhahdo ama dadka ila yaabaan, ayaa hoos u dhigi kara kalsoonidaada, misna kordhin kara fursadaha in aad ku guuldaraysato wax aad gaari karto. Isticmaal erayo aad kor ugu qaadayso kalsoonida nafsaada. Midani waa tilaabo aad u muhiim u ah. Ka horjeedintaada suureysa adigoo bixinaya soo jeedin aad u wanaagsan. Ku dheh nafsadaada, waan ku faraxsanahay inaan fursad u helo inaan caawiyo dhagaystayaashayda, ama si wanaagsan ayaan wax u sameynayaa. Ma rabo inaan idinku dheereeyo muuqaalka. Halkan ayaan uga baxayaa. Fadlan ha iloobin inaad la wadaagto dhammaan inta aad la jeceshahay horumarka. Aad baan ugu faraxsanahay inaan idin caawiyo. Waa inoo iyo muuqaalka kan xiga. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Fii amaanillah.